halkani waa bartamaha magaalada Jigjiga gaar ahaan taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hogaamiyihii daraawiishta ee xaruntiisu ahayd magaalada Taleex ee gobolka Sool kaasi oo si weyn ula dagaalamay gumaystihii reer Yurub ee ku soo duulay dhulka Soomaalida gaar ahaan Ingiriiskii iyo Talyaanigii haddaba taalada sayidka oo muddo sida la sheegay ku dhow 8 sano ka hor laga taagay halkan waxa ay noqotay mid caan ka ah guud ahaan deegaanada Soomaalida gaar ahaan deegaanka Soomaalida ee dalkani Itoobiya waxaanu weydiin doonaa oo hadda ila jooga Cabdiraxmaan oo ah wariye ka howlgala magaalada Jigjiga waxay shacabka magaalada Jigjiga uga dhigan tahay taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo haatan aanu imaka joogno Cabdiraxmaan soo dhawow waxaanu joognaa taaladii sayidka oo runtii taalo caan iyo magac ku lehba magaalada Jigjiga oo astaan u noqotay taalada sayidka marka laga hadlayo maxay uga dhigan tahay shacabka deegaanka Soomaalida Khalid waa maasan tahay waa sidaas sheegtay muddo waxay asaasan tahay 8 sano xukuumadii ka horeysay madaxweyne Mustafa xukuumadii Cabdi Maxamed Cumar ayaa dhistay inkastoo sheegtay in malaayiin lacag ku bixisay dhismaheeda sayidkan laga soo farsameeyay dalka dibadiisa taalada loo taagay Khalid shacabka deegaanka Soomaalida halkani waxay u tahay astaan si weyn looga yaqaan Soomaalida oo marka Jigjiga qofku uu tagayo markiiba ku soo dhacayso taaladii sayidka sawir ku soo gal oo qofka ka imanaya tusaale imika deegaanada Soomaalida dalka dibadiisa Jigjiga markuu yimaado markuu Jigjiga soo dhow yahay dhagiisa ku soo dhacayaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shacabka deegaanka Soomaalida waxay uga dhigan tahay meel aad u weyn magac iyo milka weyn ku leh taariikh fac Soomaaliyeed ay koroneen ilaalinayna sayidkuna deegaanka Soomaalida wuxuu ahaa meelihii sida weyn uga dagaalamay tusaale hadda awaara oo kale wuxuu ku lahaa sanadiyada ugu waaweynaa uu ciidamada ku xiligaas xitaa qoranayay uu ku lahaa shacabka deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo taalada marka laga hadlayo waxay u tahay mid kamid ah astaamaha ugu waaweyn ee xiligan haystaan waxaan aragnaa inta badan marka ay dhacdooyin ka dhacaan magaalada Jigjiga taalada sayidka isbedel kala duwan baa ku yimaada waxa xisad mudan markii isbedelka deegaanku ka dhacay maamulkii hore deegaanku uu meesha ka sii baxayay taaladani waxay ahayd meelaha sida weyn u faafay dhacdooyinka kala duwan laga soo wariyay maxaad ka xasuusan kartaa bal markii isbedelku dhacay magaalada Jigjiga taaladani sidee bay noqotay Khalid waa maasan tahay 4 August waxay ahayd maalin mugdiya oo shacabka Soomaalida dib weyn iyo dhibaato xiligaas ay la kulmeen laakiin halkani waxay ahayd meesha kaliya laga taagay calanka Soomaaliya sayidka intay dhalinyarada fuulan ay halka ka taageen calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waa waxyaalaha lagu xusuusto intuu sayidku jiray waxyaalaha ugu waaweynaa ee halkani ka dhacay tusaale marka hadda magaalada ka dhacaya mudaharaado wax noocaas ah dadku halkan inta badan yimaadaan waa xudunta caasimadda gobolka Soomaalida ee Jigjiga Cabdiraxmaan waxaan aragnaa inta badan iyadoo la taaladii waa la qurxiyay waa la rintiyeeyay ma sanad kasta ayaa lagu sameeyaa isbedel oo qaabkeeda miyaa la bedelaa mise waxoogaa yarana naashnaasha un baa ka dhaca tusaale Khalidow marka laga hadlayo hadda maalmaha ciidaha oo kale maalmaha qalinjibinta oo kale yani maalmo badan baa jira waaweyn marka maalmaha waaweyn dhalinyar badan baa halka timaada sawirada lagu galgalaa dadka ka yimaada deegaanada Soomaalida sawirada ku galgalaan laakiin kasakow xukuumadda ama gaar ahaan maamulka magaalada Jigjiga waxay ku sameeyaan maalmaha ciidaha iyo maalmaha farxadda halkani waxa lagu sameeyaa dib habayn waxaana loo meeraa taalada sayidka oo la qurxiyaa rinjiin dib loogu sameeyaa marka dayactir xoog oo balaaran baa lagu sameeyaa xilliyada maalmaha farxadda saan arkayno waa nin sita seef iyo qori iyo oo faraskina wata halkee lagu sanciyaa laabtan waxa lagu fasameeyay xukuumadii hore waxay sheegtay inay ku safar sameysay dalka dibadiisa waxaana sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixisay xukuumadda xilligaas jirtay inkasta oo ayna faahfaahin ka bixinin lacagta xilligaas ay ku bixisay Cabdiraxmaan malaayiin lacag marka la leeyahay ma lacagtu wanta dalka Itoobiya mise waa lacagta dollarka Mareykanka waa lacagta birta Itoobiya tusaale kale waxay xilligaas sheegeen ku baxdeen lacag dhan 40 milyan soo lacag badan ma markaynu eegno meesha aynu joogno oo ah meel kooban oo beer yar ay ka samaysan tahay taaladana ay taalo in halka lacag badan ay ku baxday baa la isweydiin karaa Soomaa tusaale xukuumaddu markay ka hadlaysay inay waxay sheegtay lacag badan ku baxday haddana marka meesha baaxadeeda iyo isha ku taala iyo noocayd markay tahay markaad rabto yani lacagta inta la baxday furin karimaysa tusaale waxyaalaha Jigjiga lagu xasuustay Jigjiga ka mid tahay hadda Jigjiga waxa ku taala sidan oo kale oo inta faraska ma saarnayna waxa loo dhisay Malazana ma ku dhintay xukuumadii Cabdi Maxamed Cumar waxa uu dhistay hoolka qaranka Soomaaliya waxa uu dhistay taalo tan oo kale oo sheegeen inay saarayaan Malazanawi
hogaamiyihii 27 sano Itoobiya xukumayay TPLF-na hogaaminayay marka yani taalifteedu waxay sheegtay lacag badan ku baxday marka inkastoo inay cadaynayno in lacagta inta la ku baxday haddana waxay sheegtay in malaayiin ay ku baxday bir oo lacagta Itoobiya dalka dibadiisana lagu soo shaqadeeyay lagu soo farsameeyay waxaan ognahay in uu dhintay saad sheegtayba Malla Sanaawi taaladiisa halkee hadda ku dambeysay taalada sayidku hadda waxay ka mid tahay meelaha burburay inkastoo sidoo kale meel tahay sidoo kale u kooban oo inta ka yar tahay haddana weli raadkeedu u jira xilligaasi Malla Sanaawi suurkiisa la saaray laakiin kadib haddana waa laga qaaday tusaale Referral Hospitalka deegaanka Soomaalida isbitaalka guud deegaanka Soomaalida xilligaas waxa lagu magac daray Malla Sanaawi Referral Hospital meelaha lagu magac daray bay ka mid tahay xukuumadda markay timiday madaxweyne Mustafa magacii waa la bedelay Suldaan Sheekh Xasan Yare waa loo bixiyay magaca Soomaaliyeed marka yani raadad badan oo kaga tagay baa jira dadkan oo gumaystiga kaga tagay yani qulubtooda iyo xitaa meelaha ay astaamaha ay dadka taariikhayaanka ee Soomaalida lagu magac daray lahaa hogaamiyaal dad kale u ah magacii maamuus ku leh oo Soomaalida aan ku lahayn Soomaalida gabadh fulan u geystay in halkan astaamo laga sameeyo meesha aad iyo aad baa Cabdiraxmaan mahadsantahay aad ma santahay waa hagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Buux oo ah wariye ka howlgala magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo nooga waramayay waxa ay shacabka magaalada Jigjiga uga dhigan tahay taalada sayidku tan iyo kulanti dambe nabadgelyo